run ahaantii natiijada xalay lagu dhawaaqay 12 habeenimo markii ay ahayd ee xisbigii hore ee talada hayay oo lagala wareegay xisbigan cusub hadda imaaday run ahaantii waa uu ka duwan yahay dadka muhaajiriintana inta badan waa ay diidan yihiin waxaa cabsi weyn ay ka jirtaa haddii ay ku dhawaaqeen ayna dhaheen qof walbo qalad gala dib ayaan u celinaynaa annagoo dhanna waxaa waaye dad cabsida qaba ayaan nahay xalay oo dhan waxaa waaye jarmalka inta badan lagama seexanin runtii annaga kuma faraxsaneen inay xisbigan soo baxaan maadaama aan ka mid nahay dadka ku nool waddanka jarmalka waayahay marka baabajey bal ka waran cabsidiinnu marka maxay salka ku heesaa oo idin muuqda run ahaantii anaga waddanka markii aan soo galnay soo dhoweyn kadib waxaan helnay rejecti oo in barnaamijkeenii qaxootinimada ah la diiday rejectiga haa haddii oo qofka rejecta la siiyo dadminis micnaheeda waxaa waaye fursad kala ku banaan oo ah inaad abiil ka qabsato haddii abiilka aad qabsato kadib haddana lasoo diido waxaa waaye mid saddexaad aa haysataa oo ah in aad dalban karto haddii taas lagaa diidana ay tahay in waddanka lagaa bixin doono qof walba meeshoo ka imaado dib loogu celin doono waayahay bal marka adiga nooga waran baabajeeyow muddo kooban waddanka waa joogtaa diidmooyin wax intee la eg ayaad adigu la kulantay ilaa hadda sidees adiga kuu saamayn kartaa run ahaantii aniga markaan waddankan soo galay rajada aan haystay waxay ahayd 100% oo taas oo aan u aanaynayo maadaama aan dadka ka duwanahay baahiyaha gaarka aan qabo aan isdhahayay fursad waxaad ka heli kartaa oo caafimaad inaad hesho oo lugahaaga dib aad ugu istaagto laakiin rajadii oo dhan hadda waa ay dhimatay waxay noqotay mid ceel ku dhacday taasoo aan u aanaynayo wixii aan ka filayay iyo waxa ii imaaday inay kala duwan yihiin taasoo aan helay diidmo haddana mar labaad maxkamadda markii abiil aan ka qaadana aan ka helnay diidmo gobolkii hadda aan joogo istakhason oo ka tirsan maglinburgna ay ii soo direen warqad waddanka aan kaga baxayo bishaan hadda aan ku jirno february 28 ee maalmada ka dhiman tahay maxay ku yidhaahdeen marka warqaddii ugu dambaysay waxay ugu dhaheen 28 waddanka waad ka baxaysaa meeshii aad ka imaadeen dib ugu laabanaysaa marka laba siyaaboodba cabsi waa ii heesaa midda koowaad oo ah in Poland aan ka imaaday ay dib iigu celinayaan xataa taas dhacdo waa xoogaa arrin wanaagsan waayaan dhihi karo dib aan usoo laaban karaa laakiin hadday noqoto in toos lee celinayo ilaa haddana aanan hubin waa cabsi kaleedoo meesheeda taala sababtoo ah intii aan soo maray iyo waqtiga iga soo baxay waa murug kaloo aad u weyn markaad tiri Poland markii laga soo tago in dib la ii celiyo kale maxaad halkaa ula jeedaa Soomaaliya in dib loogu celiyo markii horena aan halkan ka soo doontay inaan ka helo magangeliyo oo aan si aan caafimaad u helo oo lugahayga aan dib ugu istaago sidaan wada ognahay Jarmalkana waan ognahay number 1 inay ku tahay dhanka caafimaadka ah iyo lafaha marka rajadii aan qabay hadda waxay noqotay mid ceel ku dhacday xisbigan hadda imaaday iyo xisbiga labaad ee ku xigaba waa xisbi cunsuri ah aan ogoleen dadka muhaajiriinta ah xitaa waxay sheegeen iska dhaaf qalad weyne adigoo tareenka tikid la'aan koray haddii lagu qabto xataa in dib lagu celinayo waayahay marka waddanka waa ku cusub tahay baabajey dabcan luuqaddana waa kugu cusub tahay waxaas ma wax si rasmiya xisbiyada iyo siyaasadooda iyo xilligii ololaha ku jireen aad u maqasheenoo dadkii idinla shaqaynayay iyo hay-adihii idin taageeraya idin sheegeen mise waa warar malaha soomaalidu cabsi ayada dhexdeedu ay isu abuurtay isu sheegtay waxaan horta way qoran yihiin jaraa'idkeena ku qoran yihiin xog walbana soo baxdo iyadoo Soomaali ah baa dadku soo turjumay lagu soo diraya marka annaga waxaan ka fiirinaynaa mar walba waxay tahay xisbiga soo bixi doono qof walba wuu ka warhayaa waxa uu sameeynaa xisbiga intaan la dooranin ka horna waxa uu sameeyaa ballanqaadyo ah in mar walba ay dadkan la dagaalamayaan dadka muhaajiriinta ah taasaan u aanaynaynaa marka waayo hadda 28 bishan aan ku jirno oo ay maalmo ka dhiman tahay lagu qabtay maxaa dhici karaya 28 kadib ti ilaahay waa gooni laakiin annaga dhankeena markii ay tahay dadkan go'aankooda mar walba waa sida cimiladoo kale waxaan arkay aniga qof aan aqaano inta la waday ee laboorka la geeyey haddana dib loo soo celiyey iyo waxaan arkay qof kaloo aan aqaano dhalinyarada Soomaaliya kamid inta la waday Soomaaliya laga dejiyey marka waxay noqon doonto horta anaga ma sheegi karno saacadaha soo socdo wixii ilaahay keena horta mar walba dhacay taas waa aaminsanahay laakiin natiijada hadda aniga aan haysto ma ahan mid aan ku faraxsanahay ama aan ku qanacsanahay aniga marka hore ujeedka u soo baxay ma ahayn nafteyda oo kaliya maadaama aan ahay aabba naafa ah ee ka dambeeyaan 5 caruur iyo xaas waxaan rabay nolol ka duwan nolosha markii hore ay ku noolaayeen in aan siiyo laakiin hadda waxay u muuqataa rajadeedii inay noqotay mid riyo kaliya ay ahayd bal ka waran marka dadka hadda aad isla joogtaan oo isku meesha aad degan tihiin guriga iyo xerada iyo deegaanka aad joogtaan ee xaaladahaada ee kula midka ah ayaguna bal wax nooga sheeg runtii way ila mid yihiin cabsida intaan qabay in ka badan ayay qabaan taasoo ah xisbigan hadda soo baxay natiijada aan ahayn mid ay ku qanacsan yihiin oo beri dambaba isbedel uu dhici karo oo ah dhanka muhaajiriinta ama dadka soo galootiga ah kuwa hadda joogaba hadday noocaas yihiin kuwa soo socdana waa macquul in natiijo ka duwanteena ay la kulmaan oo ahba in aan la soo dhaweyninba